maanta waxaan leeyahay xalfad aad u weyn xalfadaas aan ku furayna Wamo Institute of Professional Studies. Wamo Institute waa college laga furay xaraya qaxootiga oo aan rajeynayna insha Allah inaan ardayda qaxootiga ee ka qalin jibiyay primary-ga secondary-ga ay uga faa'iideystaan anagoo insha Allah aan ku leenahay dadka xaraya qaxootiga degan inaan bixinayno waxbarasho tayo leh maadaama ay dadka u bateen hadda maaragtay secondary-ga iyo primary-ga ay bateen waxaan anaga nagu dhalisay inaan bilowno Wamo Institute of Professional Studies college-ka ee ugu horeeyay qaxootiga laga furay nagu dhalisay waxa way baahida ay qabaan ardayda reer Xagardheer Ifo iyo Dhagaxle iyo dhammaan xarooyinka Dadaab dhibaatooyinka ay qabaan waxa kamid ah secondary markay bogaan waxa dhib ku ah inay maaragtay ay aadaan waxbarasho sare ay u aadaan meelaha Garis iyo Nairobi liskama aado ilaa waxa lagu tagaa travel document maalmahan aad bay u adagtahay travel document in la helo ama warqadii wadada lagu maraa in la helo aad bay u adkaatay waxaana keentay amni darrada ee ka dhacda wadanka ee ka jirto ayaa waxa sabab noqotay in la heli waayo warqada travel document-ka ama warqada wadada lagu maro saas awgeed ardaydii ka qalajibisay secondary-ga ayaa meeshan ku rafaasan oo waxbarasho maaragtay jaamacad ama college ay laasan yihiin waqtigoodana ay baadamundas ku dhumiyeen marka waxaan isleenahay in waxaan u keenay college-kan inaan nooga faa'iideyno ardayda ama dhalinyarta Dadaab refugee camp insha Allah waxaan rajeynaynaa inay ka faa'iideystaan waxa xalfada maanta martina ugu ahaa mudanaha aqalka hoose laga soo doortay Faafi Xasan Xalane waxa la socday isagana mudanaha laga soo doortay Burra Isti Cabdullaahi Kabe Cabdullaahi Cumar ayagoo maaragtay ayna ka maqneen odayaashii madaxdii iyo maaragtay dadkii reer Xagardheer qaastan iskuulka wuxuu ku yaala Xagardheer laakiin Xagardheer kali kuma ekaan insha Allah waxaan rajeynaynaa saddexda bilood soo socota insha Allah inaan xarooyinka dhan aan qabanno insha Allah si aan uga faa'iideyno dhalinyarta maaragtay baadamudanas insha Allah anagana insha Allah aan meel u gaarsiino waxaan rajeynayaa insha Allah dadkii ka soo qayb qaatay aad bay u mahadsan yihiin mediaska aad baan ugu madcelinayaa maadaama ay naga qayb qaateen xalfadan inta qaaliga insha Allah maaragtay xarigana hadda waa laga jira Wamo insha Allah berito wixii ka bilowdo ilaa Isniinta waxaan rajeynaynaa insha Allah ardayda inay diiwaangelis u imaadaan ay iska diiwaangeliyaan courseska aan barayna waxa way certificate courses iyo diploma courses waxay kala yihiin business management human resource supply chain and procurement logistics and transport waxa kale oo noo raacsan community development and social work project management noo raacsan courses kale waxa jiraan ayagana ardaydaas ka maaragtay grade hooseeyay tayado maaragtay imtixaanaadkooda iska hooseeyay insha Allah ayagana aan u keenay imtixaanaadkeena waa imtixaanaad laga aqoonsan yahay Ministry of Education oo aqoonsan yahay insha Allah waxaan rajeynaynaa insha Allah in aad looga faa'iideysto courseska siito waa courses aad muhiim ah aan rajeynayno dhalinyarta in maaragtay ay wax ka bedeli doonto noloshooda insha Allah ilaa waxbarashada waxa way bilowga nolosha insha Allah waxaan rajeynaynaa aad uga faa'iideystaan waana soo dhaweynaynaa ardayda iyo waalidiinta insha Allah inay ka soo qayb qaataan ay fursadana la qaataan